أنا خليفة على الدنا، أنا رسالتي بها الوجود آمنا. أنا خليفة على الدنا، أنا رسالتي بها الوجود آمنا. أنا توافق التراب. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومركلي برنامجكيني aynu magac darnay xaq dhowr aynu kaga waramanay xaqa iyo xuquuqda aynu isku leenahay dhexdeena inagana laynagu leeyahay. maanta xalqadeena tan waxay ku saabsanaan doontaa xaqu raaci waraciya, xaqa ay isku leeyihiin ka maamulaha iyo kala maamulayo. haddaynu si kale u dhigno, xaqa ay isku leeyihiin madaxda iyo shacabku, xaqa ay madaxdu shacabka ku leeyihiin iyo xaqa shacabka ay madaxda ku leeyihiin. bal waxaynu horreysiin doonaa xaqa madaxdu ay ku leeyihiin shacabka, inagoo dareensan ahmiyadda ay leedahay inay dadku maamul yeeshaan, kala dambeynna ay dhacdo, arrintaasoo ay ku hagaagaso arrinkooga adduun iyo kooga aakhiro labadaba. diinteennu aada iyo aad bay u adkaysay xaqa iyo xuquuqda ay isku leeyihiin qofka xaakimka ah ama qofka maamulaha ah ama qofka madaxweynaha ah iyo qofka shacabka ah ee ku hoos nool. bal haddaba inagoo soo koobana waxaan isku dayaynaa inaynu bal ka waranno qofka madaxda ah muxuu xaq ku leeyahay qofka uu madaxda u yahay. qodobka koowaad, waxa uu xaq ugu leeyahay inuu ateeco, waana mid ka mid a xuquuqda waaweyn ee uu ku leeyahay qofka madaxda ahi qofka uu madaxda u yahay. ilaahay subxaanahu watacaala waxa uu ku tilmaamay fi lqur'aani alkariim fii suurati الnisaa aayadda 9 oo uu leeyahay: bacda acuudu billahi min ashayطaani الrajiim yaa ayuha aladiina aamanuu aطiicuu allaha waaطiicuu الrasuula wa uli اlamri minkum. dadkii iimaanka lahaayow, ilaahay adeeca oo rasuulkiisa adeeca oo kuwa arrinka idiin hayana adeeca. ulul amri markay mufasiriintu tilmaamayeen laba qolob ay ku tilmaameen: alculamaa walumaraa, waa culimada diinta iyo madaxda. marka in madaxda la adeecaa waa shay waajib ah, maha sunnin. amarkaasaa lagu cadfay, marka cadafka iyo macduufkuna waxay iska waafaqaan waxyaabaha ka mid ah waa xukunka. wa ulil amri minkum, waxaad adeecdaan kuwa arrinka idiin haya. rasuulu llahi maxamed calayhi salaatu wasalaamna xadiidka bukhaariya muslim ba ay soo wariyeen waxa uu ku tilmaamaya isagana uu leeyahay: man aطaacanii faqad aطaaca allah. qofka anigoo nebi maxamed ah ee adeeca ilaahay subxaanahu watacaalana waa adeecay. waman yacsinii, qofka aniga ee caasiyaana faqad casa allaha, ilaahay subxaanahu watacaala waa caasiyey. waman yuطic ilamiira, qofka madaxweynihiisa ama madaxda u ah adeecaana faqad aطaacanii, aniga way adeecay oo anigoo ah nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam. waman yacsi alamiira, qofka amiirka caasiya ama amarka amiirkiisa ama madaxdiisa ama mas-uulkiisa qaadan waayaana faqad casaanii, anigana waa caasiye. hada alxadiid wa hadihi alaaya waxay noo cadaynayaan qadiyadaasi inay tahay qadiyad aada iyo aada muhiim u ah. in badan bay isku dayaan dadyow ka baxsanaya ama ka fogaanaya inay ku dhaqmaan ama ay qaataan dariiqada nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam inagu barbaariyey, iyagoo u gacan taagaya ama u haadinaya dariiqyo kale iyo mabaadi' kale oo ay ka mid tahay dimuqraadiyadda iyo bahashan calmaaniyadda loo yaqaano. labadaa fikir oo ceesho milix isku ah waqti xaadirkan aynu nool nahay ayaa waxay aada iyo aada u buunbuuniyaan cayda, wax ka sheega, inaan la maqal, aan la adeecin madaxda. laakiin inagu haddaynu muslimiin nahay, ilaahay rasuulkiisuba waxay noo sheegayaan dadka madaxda ah inaynu adeecno. waxay noo miqyaas iyo dubdhexadi noo ah in waxa lagu adeecaya uu yahay wanaag. inama daacatu fi lmacruuf laa daacata fi macsiyati alkhaaliq. haddaba adeecitaanka la adeecaya dhowr qodob baa soo hoosgelaya. kow, inaynu ictiqaadno, aamino inay waajib tahay in la adeeco xaakimka. adeecitaanka xaakimkuna inay tahay
adeecitaan la adeecayo ilaahay rasuulkiisa calayhi salaatu wasalaam, oo aynu ilaahay rasuulkiisa wax kaga doonano oo aynaan adduun waxba kaga doonayn. waxau rasuulku lehi sala allahu alayh wasalam halaahatun laa yanduru allahu ilayhim yowma alqiyaama walaa yuzakiihim walahum cadaabun aliim. saddex ilaahay maalinka qiyaamaha ma eego. kow, mana nadiifiyo, ma daahiriyo. laba, waxayna leeyihiin cadaab xanuun kulul. saddexdaa cadaabba wax iska leh saddex qolo. saddexdaa qolo waxaa ka mid ah rasuulku sheegay sala allahu alayh wasalam rajulun baayaca imaaman laa yubaayicuhu ila lidunya. qof nin madax ah ku heshiiyey ama ku ogolaaday madaxtinimadiisa, ujeeddada ugu ogolaanayo ee uu baycada ugu dhiibayaana ay tahay oo keliya lidunya. fain acطaahu minha radya, haddii uu siiyo adduunkaana waa raalli buu ka noqonaya. wain lam yucطihi minha, haddii aanu siinna sakhita uu cadhoonaya. allahu akbar. hada alxadiid waxaa soo saaray bukhaari iyo muslim. wujuubu طaacati alimaami fi lmacruufi duuna almacsiya. waxaa soo hosgelaya in wax lagu adeecaya aanay ahayn wax walba. la, waxa lagu adeecaya waa almacruuf, waa wanaagga. wanaaggana ma aha waxaad adigu wanaag u taqaano, kan kalena wanaag u yaqaano, kan kalena wanaag ugu yaqaano, laakiin waa waxa shareecada islaamku oo ah aliya rasuulkii ay u yaqaanaan wanaag. ilaahay rasuulkiisu maxay wanaag u yaqaanaan? waxa waad ku adeecaysaa. ilaahay rasuulkiisu maxay macsiye ama dembi u yaqaanaan? waxa kuma adeecaysid. waxaa kaloo soo hosgelaya in lagu adeeco imaamka fi jamiici axwaali alafraad, noocyada kala duwan ee nolosha dhinac kasta noqotaba. axwaasha oo dhan hadday noqoto waktiga farxadda, waktiga murugada, waktiga fudaydka, waktiga culayska, ayu nooc in lagu adeeco idna waa waajib diiniya. ma aha wax hebel iyo fulaan yidhaahdeen, waa wax ilaahay rasuulkiisu ay yidhahdeen. waayahay. xaqa labaad waa alsabru calaa taacati alxaakim wa cadam alkhuruuji calayh. in lagu sabro qofka xaakimka ama mas-uulka ama madaxweynaha dulmigiisa lagu sabro oo aan lagu bixin, khuruuj aan loola iman. arrinka noocaasa rasuulku sala allahu alayh wasalam aad iyo aad buu u adkeeyey, waana inoo diiday. bal u fiirsa xadiidkan imaam muslim uu soo saarayo. waxau leeyahay khiyaaru aimatikum aladiina tuxibuunahum wayuxibuunakum wayusaluuna calaykum watusaluuna calayh washiraaru aimatikum aladiina tubgiduunahum wayubgiduunakum watalcanuunahum wayalcanuunakum. wuxuu rasuulku ka warramay madaxda wanaagsan iyo madaxda xun. madaxda wanaagsan waa kuwa shacabkooga jecel, shacabkuna iyaga jecel, u duceeya iyaguna u duceeya. madaxda xunna waa kuwa shacabkooga neceb, shacabkuna waa kuwa madaxdooda neceb. waay ee islacnada, ishabaara. markaasay rasuulku ay weydiiyeen saxaabatu rasuul oo yidhahdeen afalaa nunaabiduhum bisayf, maanaan seefta u qaadanayn rasuulkii allow. rasuulku muxuu yihi laa maa aqaamuu fiikum asalaa, inta ay salaada idinku dhex oogayaan seef iyo qori iyo xabatoona u qaadan maysaan. waidaa ra'aytum min walaatikum shayئa takrahuunahu faakrahuu camalah walaa tunzicuu yadan min daaca. haddii aad aragtaan shay aad nacasaan, camalkaa naca, laakiin daacada iyo inaad ku hoos noolaataan ha ka hoos bixina, jabhada ha ka hoos samaysanina, ha isku dayin inaad kursiga ka tuurtaan. maxaa yeelay maslaxadda ka weyn ee kan xaakimka ama madaxweynaha ama mas-uulkaa iyo kuwan shacabka ay helayaan ayaa ka weyn dulmiga iyo qaladkaa uu sameynayo qofka madaxweyneha. mar kale imaam muslim xadiidka uu soo warinaya xudayfat bn yamaanna uu ka soo warinaya rasuulka sala allahu alay wasalam. wuxuu rasuulku leeyahy tasmac wa tutiic lilamiir, waxaad maqli oad ajiibi qofkaaga madaxweynaha. wain duriba dahrak waukhida maalak fasmac waatic. hada alxadiid waa cajiib. imaamu daxaawina wuxuu ku lahaaba dee kitaabkiisii caqiidadaha walaa nara alkhuruuja, uma aragna in lagu baxo calaa aimatina wa wulaata umuurina haddii xataa ayna dulmiyaan. walaa nadcu calayhim, habaarina mayno. walaa nanzicu yadan min daacatihim, daacadoodana ka bixi mayno, ka hoos fogaan mayno, la dagaalami mayno. yajib calى raciyati adaabu xuquuq alxaakim wain qasaruu fi xuquuqi raciya. haddii madaxweynaha ama mas-uulka dowladeed eed ka hoos nooshahay oo xaqaaga ka gaabiya macnaheedu maaha isagana xaqiisi baan ka gaabinaya. arrinka noocaasa rasuulku sala allahu alay wasalam waa inoo diiday. waxa uu leeyahay rasuulku inakum satarawna bacdii atharatan wa umuura tunkiruunaha. qaluu fama ta'muruna ya rasuula allah
wuxuu rasuulku leeyahy sala allahu alay wasalam waxaad arki doontaan arrimo aad diidaan iyo waxyaabo filan waa idinku noqda deeta rasuulullahi maxamed calayhi salaatu wasalaam way weydiiyeen waxay ku yidhahdeen maxaadna amraysaa rasuulka ilaahayo weliba marka baabka madaxda laga sheekeynayo ayuu rasuulku arrinka noocaasa tilmaamay waxau rasuulku tilmaamay haadil taladan arrintan aadka aad ku yaabka badan leh oo muxuu yidhi adduu ilayhim xaqahum waar xaqa madaxdiinu ay idinku leeyihiin u guda wasaluu allaha xaqakum ilaahayna weydiista xaqiina allahu akbar mar kalena rasuulku sala allahu alay wasalam waxa uu lahaa waacطuuhum xaqahum faina allaha saa'iluhum cama starcaahum waar xaqooga siiya ilaahay subxaanahu watacala waa weydiin doonaa waxaa ka mid a in loo nasteexeeyo xadiidka bay noo daliila addiinu nasiixa waxaa ka mid a in loo gargaaro loo hiliyo oo la ilaaliyo xadiidka imaam muslim soo wariyey baa isagnaa u daliila waman baayaca imaaman faacطaahu safaqata yadihi wathamarata qalbihi falyuطichu in istaطaaca fain jaءa aakharu yunaasichu fadribuu cunuqa alaakhar bal u fiirso qofka imaam la baayactama ee qalbigiisii iyo gacantiisii u dhiiba ee raalli ka noqdaan macna ha adeeco intuu awoodo haddii uu yimaado mid kale oo kursiga doonayna ku qabsadaana kaa kursiga doonayna ku qabsado kurkaa loo dheereeyo in la weyneeyo oo la maamuuso qofka xaakimka ah yadna waxay ka mid tahay xaqa iyo xuquuqda uu ku leeyahay dadka shacabka waxa u daliila xadiidkii min ijlaali illahi wa ikraami di shaybati almuslim waxaa ka mid ahaa wa ikraami di sulطaan almuqsid in qofka caadilka ah ee xaakimka ah ee mas-uulka ah in la maamuuso oo la sharfo in hadalka loo shilciyo oo xaqa iyo xuquuqda inagu leeyahy oo aan lagu adkayn weliba marka ad ag taagan tahay bal u fiirso nabiyullaahi muusa calayhi salaam iyo fircoonba ilahay muxuu ku yidhi idhabaa ilaa fircawna inahu طagaa faquulaa lahu qowla layinan lacalahu yatadakara wayakhsha mas-uulkaaga dowladeed madaxweynahaaga ama wasiirkaaga ama markaad doonayso inaad waxu sheegto hadal wanaagsan isticmaal hadalka wanaagsan waa sadaqo hadal dabacsan oo jilicsan isticmaal waxaa laga yaabaa qaladka aad ka cabanaysaba in ilaahay subxaanahu watacala ku hanuuniyo in qalbigiisa ilaahay subxaanahu watacala ku jiciyo in layska ilaaliyo in ceebaha madaxda la sheegsheego oo la wareejiyo iyadoo si guudba ay xaaraan inooga tahay ayaa haddana si gaarana ay madaxda xaaraan inooga tahay inaynu ceebahooga ka dhex waranno si aanay taasi sabab ugu noqon in dhexdeenna nacaybkooga ugu dhex faafo nacaybka aynu qabnaa dhexdooda ugu faafo deeta daacadoodii iyo wanaagoogii dhexdeena ugu yaraado taasina hadhow tola ay keento khilaaf iyo shar aynan qaadi karin waxaa ka mid a xaqa sagaalaad inaynu salaada ku taba tukanno xaakimka ama mas-uulka ama madaxweynaha ama mas-uulka wanaagsan ama ka xun laakiin waa inuu muslim yahay inaynu la jihaadno oo aynu jihaadkana raacno wuxuu rasuulku llahi sala allahu alay wasalam uu leeyihi yusalluuna lakum fain asaabuu falakum wain akhda'uu falakum calayh markana rasuulku sala allahu alay wasalam waxa uu lahaa laa hijrata walaakin jihaadun waniya waxaa ka mid ah adducaau bisalaax in loo duceeyo waana qadiyadaha ugu waaweyn aad maanta moodo in badan oo dadka muslimiinta ah ay ilowsan yihiin halka ay ku mashquulsan yihiin ka waranka ceebaha dadka madaxda ah oo aynu maanta dareemi karno in dee madaxdii wanaagsaneed caalamulislaam ay aad iyo aad ugu yar tahay haddana waxaa lagama maarmaan ah inaynu u ducayno lacalla haddii ilaahay subxaanahu watacala ducada aynoo aqbalo in wanaagga ay wanaagsanaanayaan sabab u noqdo in bulshaduna ay wanaagsanaato in badan baynu ku celcelinaa madax wanaagsan baynu u baahannahay aynu u ducayno ilahayna subxaanahu watacala u weydiino inuu wanaagga iyo salaaxa u tuso wanaagga madaxduna waa wanaagga shacabka wanaagga shacabkuna waa wanaagga madaxda inahaas baynu kusoo gabagabaynayna wallahu subxaanahu watacala aclam waxkam wabillahi towfiiq subxaanaka allahuma bixamdik ashhadu an laa ilaha illa anta astaqfiruka waatuubu ilayk أنا خليفة على الدنا أنا رسالتي بها الوجود آمنا أنا خليفة على الدنا أنا رسالتي بها الوجود آمنا أنا توافق